صونها تاليحيو سولد على ديسي صومالي لاني داحا ساريريو سلي وين كهرودي دبو سيحن مايه وان سلالي مانتو دبو سيحن مايه إنان عدوغا سارن إلا عينا بسيفيان كتاب صعب كساري كسيادة حلقميو وهتقول كوغادان عالنكاد بلوغا صونا هرقيسيو سولد على ديسيو إناد برامي دول سارتان boqolaal qof oo ka mid ah dadka magaalada Laascaanood ayaa ka soo qayb galay dibadbaxan oo looga soo horjeeday joogitaanka gobolka Sool ee ciidamada maamulka Soomaaliland mudaharaadayaasha oo watay calanka Puntland iyo kan Soomaaliya waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah madaxda maamulka Hargeysa iyo horjoogayaasha gobolka ka soo jeeda ee dhibaatada ku haya shacabkooda waxaana hadaladooda ay ku muujinayeen sida ay uga careysan yihiin dadkii shacabka ah ee maamulka Hargeysa uu xasuuq ugu geystay muddadii 12 sano ahayd ee ciidamadoodu ay joogeen qayb ka mid ah gobolka Sool oo ay ugu horeyso magaalada Laascaanood qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa dhigay oo la hadlay Puntland TV ayaa sidoo kale sheegay inay taageersan yihiin xukuumadda Puntland iyo howlgallada ciidamada difaaca ay ku doonayaan inay dib ugu xoreeyaan gobolka Sool waxaana ay ugu baaqeen beesha caalamka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xukuumadda Puntland inay wax ka qabtaan dhibaatada lagu hayo shacabka reer Puntland ee magaalada Laascaanood dadka meesha isugu yimi inay yihiin dad Soomaaliyeed oo waliba ka sii Puntland annagu ma nihin Somaliland waligeena ma noqon doono haddaanu nahay dadka meesha isugu yimi dadkaasi waa reer Laascaanood waa gobolka Sool maanta degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolka waa laga mudaharaadayaa waxaa laga soo horjeedaa kala go'a Soomaaliya annagu waxaanu nahay Soomaali baan waligeey ahaanaynaa kawana go'ayno Somaliland ma taageersanin ma nihin ma noqon doono waana la caburinayaa caburna cidna ka yeeli mayno waxaa dadka lagu cagajuleeyayaa in la leeyahay waa la xirayaa haddii la xirayo iyo haddii la dilayo midnaba annagu mowqifkaas aan leenahay cidna ka yeeli mayno بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول الله يافك صول سناق عين وحنا هاي شعب كيغ وحويان بلان وحنا هاي بلان وحنا هاي سوماليان أفضو بينا قوايستا حوق بينا قوايستان ما دونينو ما ربنو ما دونينو صوماليا باش عالمك وحانو الشيريا يا صوماليا إني نغسو قاران أفضوبك قفكي هالله والله حريا وحانو لأن هاي رقايا تشيدا كتشرا بلان هارتي صوماليا قول إن شاء الله قول إن شاء الله قول إن شاء الله قول إن شاء الله waxaan ahay anigu marka waraysa gabadh Soomaaliya Sooliya sanaaga yacayn u dhalatay Puntland calanka Puntland baanan ahay Soomaaliyaanan ku taageersanahay oo baaq u diraya beesha caalamka inuu naga soo gaaro Somaliland iyo qaramada midoobay waan u dirayaa waxaan u taageersanahay Puntland abdi abulullayd labisinka lagu hayaa abdi oo jaabiya caalam bakorkaaga sulan abdiiskan ku barye kala ciili noqo abdiiskan ku barye cadowgu kuba makalo cidii lagu maysayo laska ciidanti cadaawa qaatayo cadaqaatayaan cidina way dhacantay ubadkiina cayma been haweenka calaayad cidigu xigtaa Puntland waa dawlado waa silsilad lahubo wixii soo doonta dacar bay waraabiyaan barudala laysa beerka yu dhigaday bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu nahay gabdhaha Sool waxaanu taageersanahay Puntland waxaan tagaa sagaal laba tun oo kala qalan mare annagu waxaanu nahay Puntland waxaanu nahay Soomaaliya aanu taageersanahay Puntland baanu taageersanahay Somaliland ma rabno cunaqabatayn bay nagu haysaa dil bay nagu haysaa ma hadli karno guryahaanu ku jirnaa waa cabursanahay waxaanu dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa hubka imaaraadka lagu dilayaa hubka imaaraadka muuse bixi nagu dilayaa hana soo caawiyaan kana darkaysa bulshadii reer Laascaanood waxa weeye ciduma maqna annagu rayigayaga waxaanu ka qabnaa annaga nama matelaan nimanka laga soo diray Hargeysa nama matelaan nooma hadlaan annaga waxa noo hadla oo wax noo gooya oo aanu ku daba faylana waxa weeye uqaasha waxgaradka isimada waxa ugu dambeeyay hadlayay Axmed Hoolif
annagu axmed hoolif go'aanka u qaatay baanu ku taageersanaa ummadda waxaanu sheegaynaa Soomaaliyeed oo dhan ee halkaan naga daawanaysa annagu waxaanu nahay Somaliland ma nihin Puntland baanu taageersanaa sidaa ula dad fara badan ayaa ku waxyeeloobay tan iyo 2007 banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka Somaliland oo ka dhacay magaalada Laascaanood kuwaas oo shacabku ay ku dalbanayaan inay ka baxaan guud ahaan gobolka waxaana dibadbaxan u imaanaya xilli dhawaan maamulka Hargeysa oo maleeshiyaad badan oo bilaysa keenay magaalada Laascaanood kuwaasi oo xabsiyada dhigay dad fara badan oo muujiyay dareenkooda Soomaalinimo maxamed bilegeelle warbaahinta dawladda